halkan maanta ulijeedka kulankeenani waxa weeyaan xaaladaha cusub ee ka soo kordhay dagaalada ay abaabulayaan kooxaha ka soo horjeeda nabadda iyo deganaanshaha deegaankan kooxaha abaabulaya xukun xoog lagu qabsado kooxaha abaabulaya oon u aaba yeelaynin dhiigga dadka daadanaya kooxaha isu soo abaabulaya inay iftiinka demiyaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Galmudug u shidan inay demiyaan nolosha iyo wadajirka dadkan Soomaaliyeed ee halkan ku nool kuwaas falalkaas noocaas sameynaya arrimahooda ayay ahayd maanta kulankeena aan ku saabsanaa waxaana rabay inaan halkan runtii dhowr qodob aan ka sheego ama dhowr qolo aan kala hadlo midda koowaad waxa weeyaan dadka abaabulkaas ku jira anigu de runtii aan dhihi kara waa nabadiid macna kale iyo magac kale oo yeelan karaan ma jirto dadka nafta waxa cadow u ah qofka goynay waxa cadow u ah qofka nolosha u diidan waxa cadow u ah qofka inay noolaato hor taagan isbaarada u taala cadow ah maantay cadow uga darani ma jiro deegaanada Galmudug kuwa doonaya iyadoo shabaabkii lala dagaalamayo inay dadkii dhabarka ka toogtaan kuwa doonaya inay waxa ay rabaan iyadoon loo qoon waxaan u maleynayaa 2 sano ka hor ayaan hoolkan inagoo joognaan aan halkan ka hadlay oo aan dadka Soomaaliyeed iyo reer Galmudugba kala hadalnay oo ay ahayd hadalkeeni hal la sheego waxa ay rabaan iyo waxa ay ku qancayaan iyo meeshay ku dhamaanayaan iyo goortay dhamaanayaan in ziyaaradii culimada iyo khayrkii iyo wanaagii lagu bedelo dhiig in la daadiyo in marmarsiyo laga dhigto Sheekh Yuusuf Direed ziyaaradiisii gogoshiisii iyo xilligiisii dadka Soomaaliyeed ay isugu wada imaanayeen oo ay maaragtay munaasabadaas qiimaha leh inay u bedelaan mid dhiig lagu daadiyo inay u bedelaan ayagoo culimadii ah dadkii fatwo khaldan ay u fatwadaan inay dadkii dhiigooda isku baabi'iyaan marnaba wax la qaadan kara ma aha tilaabada ay ku dhaqaaqeen nimanka odayaasha ah ee siyaasiyiinta ah anigu ma dhahayo culimo waaye لأن علماء مواصفات اللي هذا تلمامي ليهن علماء خير كي كشقيان علماء دتك الدين كبران علماء ديك مسلم كإلا الضادية هور استاجان علماء وناج ومد التصيان لكن علماء معها قفك قرية ستة دوناي إنه دلدتك متك الله صعد الدلاية متك كسو خرجية الدلاية ونمم من إنه دتك ديك وده عبكان وعلماء ما قانو شباب كل ما دقاشنين إنه يهين دت جارة أو عرك كسو دقي وعدت صوماليات وويلشني ودad sheeganaya inay ahlu diin yihiin oo culimo yihiin haddana dadkii bay dilayaan dadkii bay qarxinayaan dadkii bay baabi'inayaan laba tafsiir kala ma qaadan karo qofka wax dilaya ee ummadda barakicinaya ee ummadda qixinaya kalarka uu rabo iyo lawnka uu rabo ha ahaado kala ma taqaano itijaahiisa fikriga meesha uu ka soo jeedo haddii afcaashoodu ay mid noqdaan isku mid ayaa loola dagaalamaya isku midna waa looga hor imaanaya cadow isku midna way noqonayaan Galmudug maanta uma baahna cid burburisa Galmudug uma baahna cid maslaxadeeda iyo danaheeda hor istaagta deegaanada hadda uu xildhibaanku ka hadlayay Dhuusamareeb iyo maaragtay Gurceel iyo Matabaan oo Hirshabeelle ka tirsan dadka joogana si guud ayay ugu jeel qabaan nimankan odayaasha ah inay ku celiyaan godkii shalay ay ku hayeen mugdigii shalay ay ku dhaxayeen ayay rabaan inay markale dib ugu celiyaan ma filaayo inuu ficilkaasi socon doono barabakis iyo laba baabuur oo yar yar ee hadba 10 wiil inta la saaro hadba meel la tago ma deegaanna laguma qabsanayo dadna dawladnimadana laguma dhaawici karo laakiin dadka dhiigooda ay daadinayaan ayay ziyaadinayaan oo dhibaatada ay geysanayaan oo cusleynayaan midda dadka reer Galmudug waxaan rabaa inaan idhaahdo ama gaar ahaan dadka deegaanadan degan inay ilaashadaan dawladnimadooda inay macnaha dawladnimadu waxay ku jirtaa midnimadoodii ku jirtaa macnaha dawladnimadu waxay ku jirtaa inay dawladooda garab istaagaan inay la shaqeeyaan inay nidaamkaas maamul ee dawladeed ay dhistaan ay macnahooda ku iman karaan laakiin macna kuma yeelan karaan inay jabhado cusub ee is abaabulay oo danta laga leeyahay ay tahay in manaasib iyo xilal lagu xaqiijiyo dhiigooda inay maanta garab istaagaan ama ay la shaqeeyaan waan ognahay dadku inaysan taageersanayn waan ognahay inaysan la jirin laakiin inta yar ee wali aaminsan inay khayr ka shaqeynayaan inta yar ee caadifada diiniga lagu kicinayo ee aan xaqiiqda nimankani iyo waxa ay ka shaqeynayaan si fiican u fahamsanayn ayaan leenahay ka waantooma ogaada xaqiiqda dhabta ay waxay ka shaqeynayaan ogaada sanawaadkii dhowr iyo 10 sano ah ee la soo dhaafay waxa ay ka shaqeynayeen nimankaasi siday u shaqeynayeen xilli walba iyo duruuftay joogeen dantooda iyo maslaxadooda sida ay hormuudka u ahayd ama ay iyadu hor socotay oo aynan marnaba u qiimeynaynin deegaanka iyo dadka
ay matalaan ama ay ka soo jeedeen masaalixdooda iyo danahooda gaarka maantay qofka raba inuu galmudug matalo qofka raba inuu deegaankan magaciisa uu xil ku qabtaahi kama shaqeeyo xabad iyo dhibaato dadkan lagu rido kama shaqeeyo marka dadka walaalaha ah ee weli ku kadsoon ee haysta inay culimo iyo diin ilaalinayaan waxaan leenahay culimo iyo diin la ilaaliyahay ma jirto ee dadkiina dhinac ka raaca dalkiina iyo deegaankiina ilaashada qodobka saddexaad waxa weeyaan dad badan ayaa waxay ka hadlayaan ama siyaasiyiin ah ama dad kale oo Soomaaliyeed oo aan isleeyahay runtii xaaladda dhabta ah ma ay dareensana ama ma ay oga ee deegaanadan ka jira ayaa wax iska soo saarayaan bayaanaad iyo warar bay soo saarayaan wararkaas iyo laga yaabo mararka qaar inay dhaawac u geysanayso galmudug inay dhaawac u geysanayso deegaanadan gaar ahaan ay nimankan culayska gaarka ku sii hayaan inay dhaawacayso marka taana waxaan leenahay dadka siyaasiyiinta ay hadalladaas aan laga fiirsan soo saaraya ee qoraya mar walba waa inay ka feejignaadaan oo aysan ku kadsoomin xaqiiqda dhabta ah nin qori wata ee siyaaro ku soo gambaday ee dad reer miyiga abaabulay ee hub soo qaatay ee ciidamadii dawladda iyo shacabkii la dagaalamaya oo aan qofna dhaafaynin oo magaalooyin qabsanaya oo orodka iyo dagaalkaas ku jira inaad tiraahdo nabad ha lagala hadlo iyo hala wada fariisto iyo hala sheekaysto waxa weeyaan waxaadan fahamsanayn nooca dada aad ka hadlaysaadan fahamsanayn dadka qoriga wata ee ordaya la rooraya xabadaha ayaadan aqoonin nooca ay yihiin maxaa lagala hadlaa ninkani waa jabhad dawlad soo weeraro weeye maamul soo weeraro weeye raba inuu dumiyo hal hadaf uu leeyahay hadafkiisu waa inay maamulka iyo systemka ka jira galmudug inuu meesha ka baxa waaye waa inuu isagu xukumaa waxay rabaa ku dhinteen waxay rabaa ha noolaadeen laakiin inuu isagu yimaado weeye waliba inuu si fiican u xukumo ma ahe aakhiru rabaa inuu u diro godka hoostiisa inuu ku hayo rabaa wanaagna kuma soo u xukumo ma yaqaano laakiin wuxuu yaqaanaa inuu laba checkpoint labada dhinac ka dhigto ee uu lacag ka gurto lacagta ka aruurto baabuurta gaadiidka wadada maraysa waxa aan rahanka u nahay ee aan maanta masiirkeena iyo masaalixda dadkeenu ay ugu jiraan maaragtay ay khatarta ugu jiraan waxa weeyaan isbaaro la dhigto mareer gur iyo matabaan inta u dhaxaysa oo checkpointyaal inta laga samaysta lacag laga qaado dadkoo la xirxiro dadkoo xorriyatul qowlka lagala dagaalamo ra'yiga wanaagsan oo aan la dhagaysanin dawladnimadoo lala dagaalamo galmudug oo la baabi'iyo asal waxaa ka ah dagaalka socda iyo dhaqdhaqaaqyada socda intaasaa asal ka ah marna ma shaqaynayso uma joogno mana aqbalayno inay tallaabada noocaasi hirgasho waana laga hortagayaa tallaabo walba oo macquul ah ayaana lagu difaacaya deegaanada galmudug ciidamadeedii baa jooga maamulkeedii baa jooga annagu casaakir iyo askar ma nihin laakiin waxaan naqaanaa dadka ay ka suurtawdo masaalix iyo wanaag inay qaataan iyo kuwa kalaan kala naqaanaa shalay ninkii la karaameeyey ee markii galmudug ugu dambeysay ka baxayeen la karaameeyey diyaaradaha loo qaaday nin walbaaba xageed rabtaa inaad aado ma deegaankagaad joogaysaa ama meel kale aad aadaysaa nin walbaa meeshuu sheegtay iyo maslaxadiisa iyo wanaagiisa soo u arkaya lagala shaqeeyey ayagoo musaalimiin oo nabad qaba ka tegey ayaa qori kula soo laabtay dadkii iyo deegaankii sida ay mar kaleeta dhibaato u geliyaan taasna marna ma suurtawdo inaad hadal yaroo jilicsan oo maxaa la yidhaahdaa labada dhinac xabadda ha joojiyeen nabadda ha laga shaqeeyo waxyaabaha noocaasi annagu nabaddiid ma nihin laakiin waxaa la yaqaanaa cidda nabadda lagala shaqayn karayo ciddaan nabadda rabin ee rabta inay magaalooyin iyo deegaan iyo dad la wareegto ayaa la garanayaa marka waxaan dadkaas ka codsanayaa inay fahmaan messageka iyo risaalooyinka iyo waraaqaha ay soo saarayaan nooca uu yahay inaynan ku kadsoomin siyaasad iska soo horjeedo meelo kaleeto iyo hadaf iyo ulajeedooyin iyo qorshayaal kale ee dad kale gantaalo loo wado inaan deegaan iyo dad nabada lagu dhibaataynin oon lagu dhaawicin oon colaad lagu hurin ayaan taasna ka codsanaynaa dawladda Soomaaliyeed waxaan ayadana u soo jeedinaynaa inay dawlad goboleedka galmudug iyo maamulka galmudug shaqada iyo deegaanka ay iyagu mas'uuliyadda ka yihiin oo annaga dhan aan uga wada dambayno in lagu sabood gareeyo sidii ay ammaankeeda ay u hanan lahaayeen si ay inta ka soo horjeeda oo sida khaldan maamulka dawladnimada u isticmaalaysa maanta hadduu Sheekh Shaakir ama Macallin Maxamuud Sheekh Xasan oo galmudug madaxweyne ka ahaan lahaa oo sifo sharciya inta lagu doorto ay imaan lahaayeen dhammaantood gadaashoodan taagnaan lahayn laakiin cidda doonaysa inay xilligan qarnigan iyo waqtigan iyo sanadkan la joogo jabhado ku burburiyaan dawlado iyo nidaam shaqaynaya oo dadka maslaxadooda wax un ka qabanaya waxa weeyaan ceebay ku tahay iyagana dadka Soomaaliyeedna ceebay ku tahay deegaanadana ceebay ku tahay mana shaqaynayso mana la aqbalaayo mana laga yeelaayo marka dadkuna ayay ku kadsoomin iyaguna ayaynan isku dayin tillaabooyin aan wax badan uga hirgelinin inay runtii inay ka shaqeeyaan marka intaasaan hadalkayga ku soo koobaya